waxaan ahaa maxbuuskii ugu dada yaraa ee xabsiga dhexdiisa ku nool. Hooyaday ayaa la xiray iyadoo ii uur leh kadib markii si been abuur ah loo eedeeyay. Sidaas darteed xabsiga ayaan ku dhashay kuna koray. Maanta waxay ahayd maalintii la isii daayay. Hooyaday waxay aad uga walwalsanayd ammaankayga iyo mustaqbalkayga, waxayna igu tiri tag oo raadso aabaha. Waxaan qaatay sawir ay hooyaday i siisay, waxaanuna tagay dhismo weyn oo xafiisyo. Halkaas waxaan ku arkay koox wariyaal ah oo waraysanaya nin madax ah. Isla markiiba waxaan aqoonsaday inuu yahay ninkii sawirka igu jiray. Waan u orday waxaana ugu yeeray aabbo. dadkii goobta joogay oo dhan waa ay naxeen, laakiin isagu uu wareersanaa. Si qabow ayuu iigu yidhi kuma aqaan. Markuu arkay sawirka duuga ah wuxuu u maleeyay inaan ka soo xaday. Si uu ii rumaysto waxaan si geesinimo leh uga siibay timahayga mid ka mid ah si loogu sameeyo baaritaanka hidda-sidaha. Isagu wuu iga jeestay, laakiin kaaliyihiisii ayaa timihii iga qaatay si uu u soo hubiyo. Waxaan ku laabtay xabsigii si aan hooyaday u arko. Waxaan u sheegay in aabbahay uu i diiday uuna imooday beenay. Laakiin hooyaday waxay iigu tacsiyeysay in aabbahay uu yahay qofka dunida ugu jecel. waxaan u ballan qaaday hooyaday inaan soo badbaadin doono, laakiin waxay igu tiri aabbaha ama ka guulaysan karo qofka shirqoolka noo dhigay. Aniguse waan ogaa in aabbahay uu ka xoog badan yahay adeerka weyn ee hooyaday dhibay. Markii uu dhammaaday wakhtigii booqashada waxaan mar kale ka baxay xabsiga. Askari dumar ah ayaa iga xumaatay nolosha aan ku jiro, laakiin waan u dhoola caddeeyey waxaana u sheegay inaan weli aabbahay ku kalsoonahay. Dhanka kale aabbahay ayaa guriga la fadhiyey awoowe iyo ayeeyo. Markaas ayaa waxaa soo galay kaaliyihiisii isagoo sida natiijadii baaritaanka. Waxaa la xaqiijiyey inaan ahay gabadhiisa saxda ah. Isla markiiba farxad iyo qoomamo ayaa isugu dhex qasmay. Waxaan ku laabtay gurigaygii yaraa ee cidladu tiilay, waxaana ka helay raashin ay ii dhigtay deris naxariis badan. Nasiib darro intii aan islahaa cun weelkii ayaa iga dhacay oo jabay. Intii aan guriga nadiifinayay waxaa soo galay adeerka weyn iyo eedada. Waxay iska dhigayeen kuwa ii naxaya, laakiin ujeeddadoodu waxay ahayd inay iga helaan furihii tiknoolajiyadda ee awoowe. Waan u diiday waayo waxay ahayd ammaanadii awoowe. Waxay bilaabeen inay guriga oo dhan baaraan. Eedada ayaa si caro leh u jajabisay sawirkii hooyaday, halkaasna waxaa ka soo dhacay furihii qarsoonaa ee ay raadinayeen. Markii aan furaha qabsaday, eedada ayaa isku dayday inay iga xoogto, waana qaniinay. Adeerka weyn ayaa aad u carooday, wuxuuna isku dayay inuu usha igu dhufto, laakiin nasiib wanaag aabbahay ayaa soo gaaray xilligii loo baahnaa si uu ii badbaadiyo. Si kadis ah ayuu shaarkiisa u furay oo ii soo abbaaray si uu ii cabsi geliyo. laakiin beddelkii aan ka xishoon lahaa si caadi ah ayaan u ammaanay qaab dhismeedka jirkiisa, taas oo keentay inuu isla markiiba wejigiisa guduuto oo qolkiisa ku cararo. wax yar kadib baasto ayaan u kariyey waxaana u geeyey qolkiisa. waxaan ruxay gambaleelka, eygii aadka u xanaaqsanaana si u hoggaansan ayuu dhinacayga ugu soo dhaqaaqay. maadaama aan ahay tababare sare oo dhanka eyda ah, haba yaraatee waxba igama gelin sida uu eygu u dhib badan yahay. mar walba wuxuu hortayda ku noqonayay mid deggan oo edeb leh. laakiin maalintaas haweenay taajir ah ayaa ii timid si ay ii hesho. waxay i weydiisatay inaan wiilkeeda u tababaro. waxay ii sheegtay in wiilkeeda xaaladiisa nafsiga ah ay aad u kacsan tahay, cuntadana uu diiday, isagoo xitaa isku dayaya inuu naftiisa waxyeelo. dhakhaatiir badan ayay soo martay, balse midna wuu caawin waayey. sidaa darteed waxay rajadeeda oo dhan saartay aniga. markii hore waan diidi rabay, laakiin markii ay ii soo bandhigtay $5 milyan sanadkii, shaki la'aan waan aqbalay, sababtoo ah waxaan lacagta u baahnaa inaan ku daaweeyo walaalkayga yar. markii aan gurigeeda gaaray waxaan albaabka garaacayay muddo nus saac ah, jawaab la'aan. isla markii aan ka fikiri lahaa sidaan gudaha u geli lahaa, albaabka ayaa si lama filaan ah u furmay. dheelitirkii ayaa iga lumay, waxaana si toos ah ugu dhacay gacmaha wiilkeeda. markii aan arkay wejigiisa quruxda badan, dareen aan ku hanto ayaa igu dhashay. waxaan bilaabay inaan isbaro, laakiin dheg jalaq iima uusan siinin ee wuxuu si degan u sii watay ciyaartiisa videogameka. si ula kac ah ayaan daahyada u furay si qoraxdu qolka u soo gasho, taas oo ka xanaajisay. si kadis ah ayuu shaarkiisa u furay oo ii soo abbaaray si uu ii cabsi geliyo. laakiin beddelkii aan ka xishoon lahaa si caadi ah ayaan u ammaanay qaab dhismeedka jirkiisa, taas oo keentay inuu isla markiiba wejigiisa guduuto oo qolkiisa ku cararo. wax yar kadib baasto ayaan u kariyey waxaana u geeyey qolkiisa. xilligaas feer buxing ayuu tababaranayay. markuu arkay inaan u soo dhowaaday wuxuu si degdeg ah iigu eedeeyey edeb darro maadaama aanan albaabka garaacin. waxaan u sharaxay in qufulka albaabka uu jabnaa, laakiin taasi xanaaq uun bay u sii kordhisay. wuxuuna ku dhaartay inuusan weligiis cuni doonin wax aan kariyey. maadaama aan ahay tababare xirfad leh, waxaan u gudbay tallaabadii xigtay. waxaan guriga ka qariyey dhammaan cuntooyinka fudud, waxaana u dejiyey jadwal cunto oo adag. mar kasta oo ay tahay wakhtiga cuntada, gambaleelka ayaan ruxayay. maalintii koowaad cuntadii wuu laaday. maalintii labaad waxaan u sheegay inuu haysto hal eber daqiiqo oo keliya. markii wakhtigii dhammaadayna isla markiiba cuntadii waan ka qaaday. 2 maalin kadib weli qolka kama soo bixin. isla markii aan damcay inaan cuntada ka qaado mar kale, si degdeg ah ayuu ii joojiyey. wuxuu isku dayay inuu iliido isagoo igu tilmaamay jaariyad ay hooyadiis shaqaalaysiisay, balse intuu hadalkii dhammayn ayay calooshiisa gaajo la qaylisay. markaan iska dhigay inaan cuntada la sii socdo, ugu dambayntii uu adkaysan waayey gaajada, wuxuuna si degdeg ah u qaatay cuntadii. waxaan xaqiiqsaday in heerka koowaad ee tababarka uu guulaystay. tallaabada xigta waxay ahayd dhisidda kalsoonida. waxaan u sheegay haddii uu si fiican wax u cuno inaan qufulka u hagaajin doono. markii uu hadalkaas maqlay, indhaha ayuu igala soo baxay. markaan arkay sida uu qurux badan yahay, ayaan madaxa ka salaaxay. ficilkaas wuxuu xasuusiyey ayeeyadiis oo ahayd qofka keliya ee qoyskiisa ka tirsan ee si naxariis leh ula dhaqmi jirtay. kadib qufulkii waan hagaajiyey oo furaha ayaan u dhiibay. habeenkaas markaan gambaleelka ruxay, si degdeg ah ayuu ii soo ag fadhiistay, isagoo si kalgacal leh madaxa iigu soo xagxaganaya.